waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mida sheekhii ahaa sheekha hindiga ah Sahsawani ayaa wuxuu radiyey wadaadkii la odhan jiray Zaynu Daxlaan ee maka khuraafaadka ka faafiyey dacwatu tawxiidna halkaa aad dacaayadda uga faafiyey wahaabiyadan iyo waxaan raggi aadka u faafiyey bu aha risaalo yar buu leeyahy oo la dhahdo addurar saniya fi raddi cala alwahaabiya halkaasuu xujaajta uga dhiibi jiray dicaayaadka dacwat sheekh maxamed ibn cabdilwahaab laga faafiyey waxaa radinaya waxa kutubtiisa ku qoran waxay sheegayaan waa shay laa yuujad fi kutubi walaa fi rasaa'ili alkhaasa oo ku tiri kuteena meel marjico ay u celinayaan haba yaraatee aani jirin waxyaaba la yaab kale waxaa ka mid a maalmo dhoweyd baa nin odayaanu waan isini qurbuhu ka yimi baanu meel isugu nimi dabeetana wuxuu nagu yihi ma wahaabiyatin waxaan ku uhi ma anagu wahaabiye ma nihin muslimiin baa nahay naxnu min atbaaci moxamed sala allahu alay wasalam xagga fiqiga shaaficiyadana xagga fiqigana shaaficiya aan nahay baan ku nihi markaasuu yihi haddaad shaaficiyati waad fiicantiin waad ku daba tukanaya dabeetana wuxuu yihi waxaan daawaday video laga duway maxamed ibn cabdilwahaab laftiisa oo ninkaas wuxuu sameynayo wuxuu ku hadlayo aad iyo aad aad ula yaabayso sheekh maxaa kaa khaldan baan ku nidhi ma taarikhda garanayn maxamed ibn cabdilwahaab xagguu videogu jiray waktigiisa hadduu xataa meel kale ka jiray meeshuu joogay laa video walaa telefon walaa shay kale dad iska badwi oo alqura tuulooyinkaa iskaga nool bay ahayn malaa matalaad baa daawatay baan ku nidhi wax laga dicaayad laga matalaad sheekh daawatay arrinkaa bal dib ugu noqo maraa kitaab aada u fiican baa jira oo masaladaasi dicaayaadka naqdinaya oo uu qoray sheekh doctora mucaasira cabdilcaziz alcabdilatiif dacaawi lmunaawi'iin lidacwati sheekh maxamed ibn cabdilwahaab waa kitaab mujalada oo aad iyo aada u fiican wey dacaawi almunaawi'iin ay almucaadiin lidacwati sheekh maxamed ibn cabdilwahaab maxamed ibn cabdilwahaab waa sheekh shuyuukhda islaamka ka mida wax gaaro inaga inaga dhexeeya ma jiro laa natacasabu lahu wax khaladana ku raaci mayno walaa nantasibu ilayh umana nisba sheeganayno idaa khaalafa sharca allah laa nuwaafiqu bal naruddu caleyh duu sharciga ilaahay khilaafo waafiqi mayno bal waxaan leenahay waxaas waa khalad wixii sida culimada kale u weeye kullu yukhadu min qowlihi wa yurad ilaa rasuul اllah wixii saxayun baa qof walba laga qaadanaya manhajkeena diinteena ka mid ma aha sheekh mucayana inkastuu cilmigiisu gaadho iyo khayrkiisa iyo wanaaggiisu in loo tacasubo laa mid mucaasira oo hadda nool walaa mid mar hore dhintay si gaaro loogu tacasubi maayo khalad lagu raaci maayo laguna difaaci maayo ilahay sharciga in raacno ina amray dad inaynu raacno ilahay inama amrin itabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tatabicuu min dunihi awliyaa laakiin qofka culamaa lislaam kuu doonayaba ha noqdee mid kamida naqdinaya waa inuu cilmi ku naqdiyo idhaahdo sidaasuu yihi saasina waa khalad waxaasaa u daliila aayaddaas saxaabada saa u fahmay xadiiska laakiin mujarad dicaayaat ama culimadii hore ha noqdaan ama kuwa dambe ha noqdaane ma banaana in culimada markaa lagu radiyo